soo dhawaad saaxiibayaal maanta waxaan la wadaagayaa 5 tool aad u muhiim ah oo noloshaada aanad ka maarmi karin qofka doontada wax baratay haddaad wax baranayso haddaad tahay content creator haddaad tahay engineer haddaad tahay ganacsade haddaad tahay arday yar waxaa doontaba qof hadda socdaalaya qof yacni noocan kula wadaagayaa maanta 5 tool oo nolosha bini'aadanka aad iyo aad ugu muhiimsan midda koowaad aan kula wadaagayo waxa weeye chat aynu ognahay ama hadda baa ku dhex jira ChatGPT ayaa ku dhex markaa saaxiibayaal ChatGPT saynu ogsoonahay dee waan ka dhagsanay xogtiisa laakiin dadku habo kala duwan bay isticmaalaan qaab kala duwan bay isticmaalaan ninba si buu isticmaalaa marka waa mid aad iyo aad muhiim ah tusaale marka waxaan siinayaa bal qaabka uu isticmaalan karo dadka laga yaabo inaan si fiican aan u fahansanayn marka hadda waxaan kula wadaagayaa dhowr tusaale oo doonayo dadka inaan ku baraarujiyo oon la wadaago wax walba oo doonayso horta wax walba oo maskaxaad kusoo dhaca oo kula wadaagaya ama waxba kaaga sheegaya hatta haddaan idhaahdo waxaad siisaa the best business idea ama ideas haddaan idhaahdo in Soomaaliya fikradaha ganacsi ee hadda waqtigan la joogo ugu fiican haddaan ku idhaahdo khadadaas way siin karaa waxaan odhanayaa saasaan ku odhanayaa waxaan leeyahay sir fudud baad iska isticmaali kartaa yani ma qasab maahan English adag oo xoogan waxaad iska isticmaasho ma isku fahmi kartaa had bad English qori karto way sir fudud way waxaan leeyahay give me st business business ideas in Somalia 2025 give me the best business ideas 2025 tarbareed marka dad yani ganacsi doonayso inaad samaysato waxyaabaha ugu macquulsan waqtigan jooga ayuu ku siinayaa halka waa kan hadduu noo soo daayay wuxuu yidhi the ideas in Somalia based on the country's economic landscape development trends natural resources and digital potential wuxuu yidhi kuwana ugu macquulsan agri business and livestock export waana xoolaha dhoofisa weeye Somalia's economy is heavily reliant on livestock and agriculture beeraha iyo xoolo dhaqatada baa midka ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta waxyaaba ugu xoogan ee aad ganacsi ka samayn karto fikirkii wuu yidhi animal feed production dairy processing meat packaging camel milk export poultry farming waxyaabahan baa ugu muhiimsan buu leeyahay hadda sababtuna maxay tahay strong regional demand buu and Gulf countries climate and stability and cultural familiarity in hadda wuxuu leeyahay qaabkan ayaa qaabka ugu weyn ee aad ganacsi ka samayn karto xoolo dhaqatada iyo waliba beeraha fikirka labaad wuxuu leeyahay renewable energy and solar and wind waa dabaysha iyo solarka qorraxda oo laga dhaliyo tamar laga dhaliyo weeye fikirka labaad solar panel distribution kasta wuxuu yidhi fisheries and safe and food processing cuntada badda oo la sameeyo iyo waliba kuwa iyo kalluunka waxyaabahaas ugu muhiimsan mobile money and service waa kuwan lacagaha lagu diro weeye sida hormood iyo EV plus kuwaas ayuu leeyahay fikir taas waa mid ka mid ah haddaan idhaahno dadka youtuberada waxay samayn karaan inuu fikradaha la wadaago haddaan idhaahdo iminka haddaan idhaahdo best niches in 2024 dan iminka idhaahdo 2025 aan idhaahdo 2025 best YouTube niche dhaqaad YouTube niches in 2024 sorry okay waxaan haddana best YouTube niches in 2025 wuxuu kusin yahay fikrado aad iyo aad u muhiim ah oo wax ku oola wuxuu leeyahay marka AI tool aad isticmaalayo koowaad labaad personal finance and side hustle inuu si shakhsi ahaan lacag u sameeyo oo side hustle samaysto side hustle waxyaabaha YouTube-ka iyo TikTok-ka iyo website-ada laga sameeyo weeye qofka soo meel wax ka baranayo dhinaca kale oo ka shaqeyso kamid ah kulli health and fitness mental wellness yani caafimaadka iyo waxyaabahaas inuu ka shaqeeyo oo fikrada ugu muhiimsan education and explainers and educainment inuu qof wax baraya dadka wax baro weeye marka fikradaas ugu siinaya wixii kala la halmaalo waxa kale ku haya kaas marka waa TTP way badiyay marka afkaarta wadiin karta waxaad ka doonayso wuxuu ku diyaarin karaa xataa CV ku diyaarin karaa hadaad doonayso marka in qorato waxaan marka hadda doonayo idin la wadaago
qofka doonaya yani markaa inuu caafimaadka yani wax ka barto case scenario aad doonayso oo kula xallin karaa su-aalaha aad doonayso kaaga jawaabi karaa marka imtixaan buu ku diyaarin karaa ama maadada ku saabsan nooca doonto ha noqotee jawaabtan soo ku siinaya kiina labaad marka wuxuu noqonaya kaamay ahaysana waa AI inta badan diyaariya dokumentiyada iyo presentationada iyo casharada ama powerpoint waxaad doonayso diyaarinaya marka inta badan waxaad markaa weydiinaysaa ama aad yani hagaysaa mawduuca aad doonayso lase hadda waxaan leeyahay prepare iyo diyaari baan hadda leeyahay prepare mawduuc baan iska qoranaa aan doonayo waxaan iska leeyahay prepare presentation markaan leeyahay presentation about what maxaa ku saabsan baan idhaahnaa let's say caafimaad baan galnaa ma waxaan galnaa management let's say anemia oo maxaa dhiig yaraanta wey ka inter baan leeyahay inter oo dhalba waa inaan isku riixo bacda halkan aan ka dooranayaa continue baan leeyahay marka continue markaan idhaahdo xoogay marka waa leerska sugaya isaga maadaama qoraal buu yara sameynaya wuxuu ku leeyahay marka waa qaybta inta badan waa subscription ruuxii leeyahay laakiin qofku hadduu si tartiib u isticmaalo muddo fiican buu maaragtay ayuu haynayaa marka halka wuxuu ku leeyahay deemka ka dooro bika deemka nooca doonaysa muuqaalka nooca ugu soo baxo doono halka waqti yar qaadaan filaya light dark let's say waxaan iska qaadanaa kaas waan iska qaadanaa hadda kaacas markaad madow baan iska qaadanaa kaas iska qaadanaa markaan generate baan leeyahay adoo nooca doonaysa hadhow adaa dooran doono nooca doonayso marka kulli isagu wareegaya wax buu yara sameynaya marka waa ka marka haddaba uu sameynaya anemia understand the causes and management hadduu diyaarinaya maaragta halkaas wareegaysa hadduu diyaarinaya marka waqti buu yara qaadanaya ilaa 1 minute meelaas yara qaadan waa maadaama wuxuu diyaarinaya buuggii oo dhan buu diyaarinaya waqti buuggii oo dhan buu diyaarinaya marka waqti buu yara qaadanaysaa inuu wixii oo dhan diyaariyo halkaas dhammaan mawduuc oo dhan buu qorayaa with anemia definition condition with anemia waxa weeye dhiig yaraanta way qofka bini'aadamka ku timaada la yaqaan anemia dadka caafimaadku ay garanayaan si fiican bay u yaqaanaan common cause waxyaabo badan keena iron deficiency ironta ku yar fitamiinada oo ku yaraa sida folic oo kale chronic sida xanuunada chronic muddada badan qofka haya waxyaabahaas hadda waa kaas mawduuc diyaari anigu ma diyaarinayo hadda sida ay tahay isaga qori symptoms and clinical presentation isaga hadda soo qoriya mawduucaas soo diyaarinaya isaga soo diyaarinaya hadda markuu dhamaystiro markaas dad qaadanaysaa ama waxaad presentation ahaan markaa ku soo jeedi ama site PDF u bedelo markaa qaado ama sayiin edit kare oo nooca ku doonayso soo geli ka doonaysana ka saar marka waa qaab nooca saaxiibayaan marka wada kastaan wakaas hadda uu wadaa ilaa hadda yani hadduu diidayna korta uu diidayna maadaama uu sameynayo hadda waa kan marka uu ready hadduu noo sameeyay badiba uu noo sameeyay hadda wax yar baa haray wadaqan xagan deemkii baa ka muuqda casaan iyo kalarkiisii marka waa qaab kale oo ama waa AI kale oo tool kale oo maaragtay aad u muhiim ah oo dadka diyaar hataa muuqaalo inaba caadi ahayn buu kula wadaagaya oo qofka siinaya maaragtay marka saaxiibiyada waa mid kale oo iskana aad muhiim waxa kale doonayaan in idin la wadaago ma doonayaan waqti dheer aad intuu dhameystirayo intuu yani sii wado maadaama waqti dheer yara qaadanayo laakiin hadda halkaas ka aragtay yani qaabka uu diyaarinayo waxaan kala doonaya in la wadaago mid kale loo yaqaano rewrite article tool mid loo yaqaano rewrite article tool kan markaa muxuu ka shaqeeyaa inta badan article toolku waxa uu inta badan yani qaab wuxuu shaqeeyaa qofku maaragtay marka uu mawduuc haysto ama qoraal markuu haysto qoraalka uu doonayo inuu wax ka bedelo tusaale hadda waxaad qoratay cashar baad diyaarisay ama waxbaa lagu soo diray qof saaxiibka ayaa wixii maaragtay soo qoray kina doonaysaa inaad ka qaadato ama CV baad qof kale u qoray baad aragtay wax doonaysaa qaab kale oo ka duwan inaad maaragtay aad la timaado tana paraphrasing buu ku sameeyay wax loo yaqaan paraphrasing oo ah in mawduucii uu ka hadlayay aanu luminaynin same meaning balse maaragtay ka duwanuun yani erayahan markaan waxaan soo qaatay mawduuc kalan soo koobinaya let's say hadda kalan soo qaatay waa one paragraph marka saaxiibay waa one paragraph baan soo qaadanaya
marka one paragraph weeye kani halkaan ku koobinaya marka qaybtan ku koobinaya bidixda marka deetana hadda waa kan hadan AI waxa weeye sorry hadan ITC baan ka wadaa professional ayaga madaxayga maray ka yani AI baan marwalba iga soo dhacay waa ITC professional qof IT ga barta professional have been responsible for managing dan waxaan leeyahay kan baan markaa la barafris u sameey soo yahay baan barafris ku sameynaa marka soo yahay barafris ku sameyno marka waxaan leeyahay barafris ku sameeyo rewax basic rewrite qofku inuu dib igu qoro oo يعني كارتون دي بيني يقرأ لكن سيمينا وحنا مع السنين يسمعونه يعني نلم يعني هاي أو كون معني يسكميهن وقد have been charged of the overseeing maintaining and company's IT infrastructure as an IT professional and making sure that the data security system and dependability and وحلم دي هاي كانون كانت قادنا سمرك عاديو كما دام عاد مركز دون سنة بدلته كان قادنا صديق قيبته قدر خصيص قدر خلاص مدام الموضوع سوق رئيسي صار حتى بوبو هديارسا بوبو هديارس بدون سوق كان wax nu qorama meelaha laga soo qoray inaad si toos oo qaato kana ku sameynaysa marka paraphrase buugaag baad diyaarinaysa kana ku soo paraphrase kiina labaadna ay saddexaad wuxuu noqonayaa sorry kiina afraad weeye wuxuu noqonayaa marka Gemini ku waxba ku sii daalimayno waa qaab iskana wax weeye waa multimedia inta badan wuxuu inta badan fahmaa ama uu ku shaqaleeyay taxinka ma qoraalada iyo audio iyo muuqaalada iyo waliba image-da bixiye maaragtay image ama sawir ah inta badan ku shaqaleeyay marka nooc walba waa doonaysana kana kula wadaagaya waana kaga faa'iideysan kartaa kiina u dambeeya waxa weeye Grammarly inta badan wuxuu ku saabsan yahay qaab extension ahaan aad moolkaaga ama computerkaaga ku xidhan kartaa deetana waa wuxuu ka saxayaa qoraalada sameynayso waxyaabaha qorayso mar walba inuu grammar ahaan inuu ku saxo oo qaab sax ah ku qoro kugu sheego oo mar walba meesha maaragtay ayna khalad ku jiro inuu ku yiraahdo halka khalad baa ku jira oo axsan ka saaro soo waliba marka ku saxaya nasab waxyaabaha ugu muhiimsan waqtiga la joogo aad muhiim inoo ah